السلام عليكم ورحمة الله. أيضا عشرة فرق بدنا عليها نص قاعدنا ويلو حنقول جرنا بوكي براكتس أند بروجريس وكدر سنة سلسلة نيو سوفت إنجليش وأنا سؤال ستار أونلاين تريننج إذا عشرة فرق بدنا أرضي هوري سوقاتين وحلا سيمريا هالكاس إذا عشرة جني تعنا نقول جرنا وأنا إنجليش أنا أي سي تي وحي أنا وحنلصق حرير دونا سؤال ستار أونلاين تريننج إذا عشرة يستيب سبعين نقول سعدان بوكي دبع عادي لبعضنا صوت دوبناي cashiro fara badan ardayda si qaasa si hanaan fiican loogu soo duubayo halkaas la sii maraya wana muhiim jiddan taasi ida cashirada imtixaanaha ku guda jirno lesson 4 baan usii gudbi doonaa maanta waana cashirada imtixaanaha on new concept English book practice and progress ka tirsanaa lesson 4 an exciting trip ayaa la qaadan doonaa safarkii qiirada lahaa oo naxdinta iyo farxadda bay isugu jiray wana muhiim jiddan taas daaragtina ardayda la soo xiriiri doonto somalistar@yahoo.com imtixaanada markaan gelaynaa la soo xiriiri doonaa waana muhiim jiddan taasida cashiro fara badan horey loo soo arkay halkaas la sii maraya okay new concept English practice and progress lesson 4 an exciting trip safarkii qiirada badnaa oo qiirada lahaa iyo naxdintii farxadda bay isugu jiray cashirada in step ka sii marayna waana Somalistar online training waxaan soo gudagalayaa cashirka maanta marka wuxuu noqon doonaa an exciting trip safarkii farxadda qiirada lahaa I have just received hadan baan helay a letter warqad from my brother walaalkayaan ka helay team la yiraahdo he is an Australia wuxuu ku sugan yahay wadanka Australia he has been there halkaa wuxuu ku sugnaa for 6 months 6 bilood team ninka la yiraahdo is an engineer he's working for a big farm wuxuu ka shaqeeyaa company weyn farm beeraha kaliya looma isticmaale shirkadahana waa loo isticmaalaa he's working wuxuu ka shaqeeyaa for a big farm shirkad weyn and he has already visited hore isla mar horeba wuu booqday a great number tiro kala duwan of different places goobo kala duwan ah in Australia he has just bought hadun buu iibsaday an Australian car gaari Australiana and has gone to Alice Springs wuxuuna aaday magaalada la yiraahdo Alice Springs is a small town waa magaalo yar in the center oo bartamaha of Australia ku taala he will soon visit wuxuu booqan doonaa si dhaqso ah Darwin magaalada la yiraahdo from there halka he will fly wuxuu ugu duuli doonaa to Perth magaalada la yiraahdo my brother walaalkay has never been abroad weligiis dibadda ma aadin before ka hor weligiis dibadda ma aadin so sidaa darteed he find wuxuu ka helayaa this trip safarkani very exciting waa mid farxad isugu jiray qiiro iyadoo cashiro fara badan horey aan usoo qaadanay waa lesson 4 compression preset and composition compression preset waa soo koobitaadu preset waa summary laga dhigo waa Faransiis saa ayay u qoran tahay baa loo aqrinayaa preset baa lahayaa and composition adoo xuris ka sameyn doona marka answer ka jawaab this question su'aalahan in not more than 50 words jawaabtaadu yeesa ka badan konton eray what has the writer just received muxuu helay qoraagii from his brother team walaalkiis team muxuu ka helay is team an engineer ba or ama he is a doctor ma doctor how long has you been in Australia imisu joogay has already visited miyuu mar horeba booqday many places goobo kala duwan or not ama maya where halkee is he now hadda ku sugan yahay has team ninka la yiraahdo every been abroad weligii dibadda ma aaday before ka hor or not ama maya hadda ka hor dibadda ma aaday misma aadin he's enjoying miyuu ku raaxaysanayaa this trip safarkiisa miyuu ku raaxaysanayaa very much aada or not ama maya waa compression preset key structure-ka marka waxaan ku baran doonaa what has happened maxaa dhacay this sentences are from the passage oo aan aqrinayno study baro them carefully ayaa carefully si taxadira what is erayada in italics jiifa I have just received hadon baan helay a letter warqad from my brother walaalkay team la yiraahdo he has just bought an Australian car hadon buu gatay gaari Australiana and has gone to Alice Springs wuxuuna tagay magaalada Alice Springs
He has been there for 6 months. Halkaa wuxuu joogay 6 bilood. He has already visited horay wuu u booqday a great number tiro kala duwan of it different place goobo kala duwan ah. Goobo kala duwan meelo kala duwan ayuu horay u booqday. My brother walaalkay has never been abroad weligii dibadda ma aadin before ka hor. My brother walaalkay has never been abroad weligii dibadda muusan aadin before ka hor here halkan. Hadda ka hor weligii dibadda ma aadin. Here are you some more sentences. Halkan sentenceyadan waxaad ka dhig ku dartaa kuwa badan oo he has received now hadda wuxuu helay baa laga rabaa. Have you ever been to Australia? Weliga Australia ma tagtay? Weliga Australia ma tagtay baa kugu jirta key structure-ka. Okay. I haven't been very successful. oo waxaad dhigi kartaa oo kale waxaa kale kugu jira have you read any good books lately? Ma akhrisay buugaag aad u fiican. Haven't been very successful for so far. ilaa hadda miyaadan ku guuleysan. Haven't been very successful. miyaadan ku guuleysan so far ilaa hadda. The train has not arrived yet. weli ma iman. idoo cashiro fara badan hore aan usoo qaadanay waa Somali Star Online Training cashiradii faraha badnaa oo aan kala soconay halkaas ayaa weli lagu sii guda jiraa waana muhiimjida taasi idoo cashiradii lesson 4 aan akhrinay oo aan exciting trip ahaa safarkii qiirada lahaa oo kala aan akhrinay idoo cashiro fara badan hore aan usoo qaadanay dhammaan ardayda kala duwan meel walba adduunka ay ka kala joogaan waa Somali Star Online Training cashiradii faraha badnaa aan soo qaadanay lesson 4 baa la sii marayaa sidaa darteed fi amaan Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi